السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الشرف الله كو قيمها إقاياها الله دمانتين وايدين ودا سلامة يا سلام كبعدي وحن إذين ليا هاي كسو دوادا يوتيوب channel كيغا مقعيغا وحال يرادا حوالول يوتيوب channel كيغا وحاولول DIYs انت بدن waxay ku ogtihiin DIY-yaha idin soo sameeyaha idin soo galiya marmarna faa'iido ku soo tuura soo maanta waa faa'iido insha Allah taala sida u jeedanba maxaa la dhihi jiray usbuucan waxaan idin soo duubay quracyooyinka aniga aan sameeyo ayaa idin soo duubay oo todobada bari ah usbuuc dhan ayaa idin soo duubay waxaan rajaynayaa inaad ka hashaan fikrad camal aad u qaadataan hada fikrad arabtaan aniga marmar waxay u dhacdaa markii maalinta la gaaro maanta hadaan wax kariyo bari camal ma soo xasuusanaa waxaan karinayaa mise waxaan karinayaa ayaan garan waynayaa sidaa daraadeeda marmar dadka kale aan ku jeestaa fikrada saas ay ugu soo dhacday waxaana dhahay dee adiga intaa garanaysid adiga already aa baratay walaalahan ugu faa'iide si iyagana u bartaan soo hadaa maalin aa garan wayso waxaa karinaysid oo mise dikale waxaa quraac u sameynaysid familiga insha Allah taala waxaan ku leeyahay channelka ka faa'iideyso videogan ka faa'iideyso insha Allah اسبوعا inta badan aniga qoyskayga horta qoyskayga wuu yar yahay qoyskaaga waxa laga yaabaa inuu badan yahay laakiin qoyskayga wuu yar yahay aniga qoys yar ayaan haystaa soo cuntada hadaa u maleysay cunto yar ha u maleynin dad badan inaan siinayo ilaa kiisa adiga qiyaastaada adaa garanaysaa ni fikrada inaan ku siiyo umba meesha u soo galiyay inaa fikrada ka qaatid umba u soo galiyay laakiin waa basan kartaa cunto walba qiyaasta familygaaga ay ku xiran tahay soo sidaa daraadeeda ayaa idinku soo sameeyay maxaa la dhihi jiray aniga bishii hal mar ayaan familigeygii aniga banaankan aadnaa mise quracan u aadnaa mise qadan u aadnaa usbuucaas ayay ka mid ahayd sidaa daraadeeda one of the days maalimaha ka mid ah ayaan banaanka aadnay maalintaasna waxaan sameeyay caruurteyda way yaryar yihiin iskuul wali ima dhigtaan soo 2 saac camal aan hurdo ka soo kacnaa 2 saac markaa soo kacno markii ay cadeystaan oo is diyaariyaan ka bacdi ayaa waxaan siiyaa mise rotis maris mise cereal dooqooda wuxuu yahay ayaan siiyaa markaas ka bacdi si ay calooshooda waxa uu sii jiraan waxay u sii bilaawaan laakiin intii hagaajinayo banaanka la isku diyaarinaya waqtigaas oo ma soo caruurta yar gaajada uma gagsan karaan sidaa daraadeeda isbuuc walba way isbedelaysaa hal isbuuc oo hal shay isku mid ah aan wada sameeyo iska yar tahay cuntada inay soo laalaabataa laga yaabaa laakiin cunto kale aan ku dhex qasaa hadda waxaan soo galiyay idin soo galiyay isniin talaado arbaca khamiis jimca ilaa sabti dhamaantood waa idin ku soo qorayaa sida u jeedaanbo maxaa la dhihi jiray isbuuc walba waan isbedelnaa halkii shay maanta isniintan aan kari isniinta dambe inaan karinaa laga yaabaa cuntada qaar isbuucan aan gari waxa laga yaabaa isbuuc dambe inay soo marin kuwana waxa laga yaabaa every isbuuc inay soo maraan kaas caruuran qaba aniga caruurteyda one of my kids kan ugu weyn picky eater waaye caruurta waxa waaye kala doorato cuntada inta badan u jecleen laakiin caruurta yaryar waxay ku fiican tahay hadaa fadhiisisid cuntada gacanta aad ku siisid way ka cunayaan ilaahay picky eater ha ahaadaan laakiin as long as cunug kala soo ag fadhiisisid oo aad hadid haye hebel wuu cunayaa adigana cun way cunayaan insha Allah taala baraawayaan way ii shaqaysaa kulli inta badan runtii hadaa idin sheegana some mornings markaan daalanahay mise dii kala jikada aan rabin inaan galo caruurteyda cereal bay iska cunaan mise dii kale rooti bay iska cunaan reality meeshaan laga hadlayo wax walba ruux soo kici karo inta badan waan soo kacaa laakiin subax haday iga taalo sidaa baan sameeyaa inta kalena waxa waaye breakfast-yahan aniga aan soo sameeyay hadda breakfast waqti weyn qaadanayo maahan kii ugu yar hadaa maraq u sameeyo maybe waqti bay qaadanaysaa laakiin maraqna hadaa jikada saartid cuntada kale canjeerada mise dii kale malawaxan hadaa dab kala saartid laba dab hal mar aad isku wadid waa wax fudud easy waaye dhaqsadii waa dhameynaysaa laakiin hadaa dhahdid hal shay baan sameyn markaasaan kan kala sameyn like hadda kasoo qaad canjeera duwaaya idan maraq baan karinayaa
maanta dhan jikada waa ku jiray runtii 1 saac 30 daqiiqo ka badan ayay kugu qaadanaysaa ilaa kiisa hadaa labada dab kala saartid family weyn hadaa qabtay familygaaga way ku xiran tahay waqtiga jikada ku jirtid ilaa kiisa aniga cuntooyinkan hadda aan soo sameeyay tii ugu badan ayaa 30 daqiiqo ah taasna waa cuntada janjeerada mise malawa xaga maraq iyo waxaas oo sameeynayo ayaa 30 daqiiqo ku qaadatay inta kale waxaan ku leeyahay 15 daqiiqo 11 daqiiqo less than that 10 daqiiqo ku qaat less than 10 daqiiqo ayay qaadanaysaa so insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysataan hadal inaan idinku badiyo ma rabo so masha Allah quraacooyinkan waa quraacyo aniga aan ka helay zaid baan uga helay sida daraadeeda ayaa idin soo galiyay waa wax fudud waa wax maxal dhihi jiray waqti badan kaaga bixinin insha Allah taala waxaan idin leeyahay video ka idin soo sharxi karo laakiin hadaan dhahaa maalin walba videogan sameeyaa idin soo sharxaya waqti badan ayuu qaadanaysaa video uu dheeraanaya aniga waxaan rabay hal isbuuc inaan isku soo tartaxa aan isku soo xirxiro si inaga dhamaantina u aragtaan ayay ahayd rajadayda wayna ii suurta gashay boobsis yar ayaan ku soo daray boobsiska waxaan rajaynayaa inay dhibaato u keenin insha Allah taala kullee cuntada sida u sameynaa waa wada arkaysaan waxaan aniga sameynaa fikradda hadaa heshid waxa rabto ku darso marna waxaa jirta ukun aan soo sameeyay quesadilla ah oo ukunta iyo fooliyada aan isku saarayo ay tahay cheese kan isku darayo kaas darabti asaga dhan veggie ka yeelan kartaa ukunta waa u goon kartaa ukunta waxa dhihi kartaa haye ukun ma rabo qudaar spinach maxaa la jiray vegetable mix hadaa rabti chicken ka dhiganay hadaa rabti tuna ku darsanaysaa wax walbo adiga jikadaada kugu jiraan jeceshahay inaad ku cuntid ayaa ku samaysanaysaa just cheese kaas waxaan ugu daray inay fooliyada iyo ukunta hoos ay isqabsadaan cheese-ka waxa uu isku xiraa wuuna isku dhajiyaa sida daraadeeda ayaa u mariyay cheese-ka saasaan u mariyay de hadaa rabtid inaad waxay isku dhagaan labada shay isku dhagaan cheese-kaas maxaa la dhihi jiray kama maanantid waa inaad haysatid haddii kolley buraa cunaysa kolley cheese-na waxaa kaama dhibo hadda burba cunaysa cheese waxaa kaama dhibaya maleeyaa inta badan dadka waxay dhahaan cheese-kii waxaas afaadka keeno laakiinse burkii waxaas uu keenaa too so reero Soomaali hadaan nahay Afrikaan aan nahay burkan kama maarmno so waxaan idin dhahayaa waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen videogan fadlan hadaa ka heshay like ii soo saar maxaa la dhihi jiray subscribe kayga iloowin hadaa igu cusub tahay ku soo dhawaaw channelkayga ayaan ku leeyahay waana kugu mahad celinayaa maxaa la dhihi jiray comment fikir ra'yi hadaa qabtid hadaad isleedahay quracdan baan ka helay xawlulay full video nooga soo samee insha Allah waan ka soo sameynayaa quracooyinkan kullee waa quracyo hadda ka hor wada aragteen aniga waan bartay waan soo hagaajiyay laakiinse hadaa hoos tusaale camal rabtid waxaan sameeyo insha Allah taala Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ayaan ku soo kala qoray maxaa la dhihi jiray mise waxaa dhahaysaa Monday full breakfast noo soo samee Tuesday full breakfast noo soo sameena tus insha Allah taala waa idin tusaya iyadoo full ah seasoning kana waxa rabtid isticmaal seasoningka kuma qasbano inaan waxaan isticmaalay isticmaashid wixii jikadaada ku jiro jeceshahay iska isticmaal seasoning waa seasoning ruux walba dooqiisa isaga garanayo ka helo so insha Allah taala sidaas ayaa idinku ogahay insha Allah commentiga soo sheega hadaa ra'yi qabtaan videoga fadlan sii share gareeya si walaalaha kale uu sii gaaro insha Allah taala nabad iyo barwaaqo ayaa idinka tagaya waxaan idin leeyahay waa inuu videogeena kale bye